Waxaa dib u dhac ku yimid keenista magaalada Muqdisho meydka marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow, gudoomiyihii hore gobolka Banaadir, iyadoo guddiga qabanqaabada aaska uu sheegay in la keenayo beri oo ah maalinimada Axadda. Warar hoose ayaa sheegaya in dowladda Ingiriiska ay qaadatay meydka gudoomiye Yariisow, waxaana ay sheegtay in baaritaan lagu sameyn doono in Yariisow uu u dhintay dhaawacii soo gaaray iyo in sun loo adeegsaday dhimashadiisa. Airport-ka diyaaradaha Qatar ayaa laga dhoofiyay meydka Yariisow si baaritaan caalami ah loogu sameeyo. Safaaradda Ingiriiska ayaa markii hore loo diiday inay qaadato dhaawaca gudoomiye Yariisow oo Britain lagu daweeyo, taas ayaana la leeyahay in shaki badan ay dhalisay. Waxaa sidoo kale aan la ogeyn in meydka gudoomiye Yariisow beri la keenayo magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaa loo maleynayaa in waqtiga baaritaanku dheeraado. Warkan ayaa la sheegay in taleefanka lagu sheegay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku sugan, isagoo ka yimid dhanka deegaanada Galmudug oo ku sugnaa bil ka badan.